السلام عليكم أصحابتي غالية وأنا سلام يا دمانت سومالي محمد. waxaan doonayaa inaan idinla wadaago sida loo soo download gareeyo AutoCAD 2015 AutoCAD 2015 aniga wuu ii download gareysan yahay, wuu igu jiraa. saa darteed waxaan doonayaa inaad idinkuna soo download gareystaan si aad uga faa'iidaystaan una barataan. waa kan 2015 tradingkii aad iyo aad buu uga duwan yahay, waanu ka horumarsan yahay. halkan waxaan ku leeyahay recent places ama recent documents. wixii aad sawirto dhan halkan ay ku gelayaan. ka doonta ayaad ku dhufanaysaa si aad ula soo baxday. halkan waxaa ku taala update, hadba wixii kusoo kordha versionkaad haysato iyo in versionkii la bedelay ayaad halkan ka eegaysaa. hadda doonayso inaad update ku samayso haddana halkan ka update galinaysaa. halkan waxa weeye inaad ka gasho ciwaankaaga ama akoonkaaga aad halkan ka gasho. halkan waxa weeye feedback, si aad ula start drawing, si aad u bilowdo drawingkaaga. so halkan waxaa taala learn videoyo aad ku muhiima si aad uga aragto sida wax loo sawiro, sida commandiska loo isticmaalo, sida aad iyo aad bay u muhiim yihiin. sidaas darteed 2013kii iyo 14kii wixii ka horreeyayba aad iyo aad ayuu uga horumarsan yahay. okay, marka aan download garayno aan isku daynaba. okay, marka ugu horeysa waxaad furaysaa browserkaaga. markaad furto halka waxaad ku qoraysaa ciwaanka AutoCAD autodesk.com enter. markaad intaas ku qorto waxaa muhiima, waxaa loo baahan yahay inay pagekaas ku soo baxo. pagekaas markuu ku soo baxo waxaad ka dooranaysaa Allahu musta'aan education community. markaad taa dooratid waxaa kuu soo baxayaa pagekaas gorilla ku sawiran. then haddii aad doonayso educators, educational institutions, secondary students, adigu waxaad doonaysaa students baad doonaysaa. so secondary students yani dugsiga sare na waa qaadan kartaa, college and university students. marka maadaama aan nahay arday jaamacadda dhigata waxayna muhiim inaan ka qaadano college and university students. intaas markaad samaysid waxaa kuu soo baxayaa pagekan waxaad ka dooranaysaa Allahu musta'aan AutoCAD. Somali Muhammad. intaa markaad doorato waxaa ku soo baxayaa registrationkaaga ayaad samaynaysaa. sing out, hadda waxaa ku jira ciwaankaygiiba hadda ku jira. waan ka baxayaa si aan idin tuso sida loo galo. markaad halkaa marayso waxaad leedahay, maadaama aanad adigu akoon lahayn waa inaad akoon cusub samaysid. so create account baad leedahay. create account markaad tiraahdo meeshaan oo dhan ayaad buuxinaysaa. select country, haddii Mongolia, Australia, meeshaad joogto hadba
birthday education halkan waxaad gelinaysaa Autodesk ID username waxaad ku isticmaali doontaa aday ku jirta emailkaaga iyo hadana emailkaaga passwordkaaga halkan waad kala garanaysaa inta markaad samayso next ay oranaysaa wuxuu ku sameynayaa account ku sameynayaa account-ka markuu ku sameeyo halkan waad xidhay dib baad u soo noqonaysaa dib markaa u soo noqoto sign in ayaad leedahay sign in markaad tidhaahdo waxaad gelinaysaa ciwaankaagii iyo passwordkaagii so waxaan gelinayaa hadda kayga marka kaygii baan geliyay you have successfully signed in hadda markaad intaas samayso waxaad leedahay choose your version 12 13 14 15 hadba kii aad doonayso hadda anigu waxaan hayaa 15 ayaan diyaarinaynay okay language-kaaga ayaad dooranaysaa dash English Spanish Somali hadduu ku jiro xitaa waad dooranaysaa English operating system kaaga ayaa dooranaysaa operating system kaaga waa noocma 64 bit 32 bit haddii aad doonayso inaad ogaato ama ay kugu adkaato sidaad ka ogaan lahayd waxaad tegaysaa computer and properties kaygu waxaa 32 bit weeye kaygu so waa inaan 32 bit aan soo dejiyaa laga yaabo kaagu inuu 64 noqdo marka hadba waxaa kuu soo baxaya install now ayaa kuu soo baxaysa halkaas in hawshaada ku dhammaanaysaa ilaa inta hawsha ku dhammaanaysana waa sugaysaa muddo ay kugu qaadanaysaa so waxaan idin rajeynayaa inaad si wanaagsan ay idinku soo download garaysmato si fiican idinkuna dhammaato please subscribe waad mahadsantihiin bye bye Somali Mohammed